السلام عليكم daawadayaal waxaad muuqaalkan ku daawan doontaa sheeko aad u yaab badan oo ku saabsan barta TikTok halkaas oo uu shakhsi lagu magacaabo Khafiyeer oo sheeganaya inuu yahay qofka kaliya ee badbaaday ama ku nool dhulka kadib markii uu ka soo toosay koomo dhakhtar ku yaala magaalada Valencia ee dalka Spain sanadka 2027 innaga oo sidoo kale xagga dambe ee muuqaalkan kaga warrami doona jawaabta ugu macquulsan ee caqliga geli karta marka hore inta aynaan gudagelin daawade waxa aan si xushmad leh kaaga codsanayaa in aad ku soo biirto channelka Miisaamo oo aad subscribe saarto si aad ula socoto muuqaalo kale oo xiiso leh barta muuqaalada gaagaaban ee TikTok oo ah mid si xawli ah u aanbaxaysa ayaa xaqiiqadii ah mid ka ballaaran sida ay Soomaalidu u taqaano ee ah in ay tahay in lagu soo bandhigo heesaha qosolka iyo in ay tahay mayd kalaab yar oo ay gabdhuhu ka niikiyaan balse waa bar lagu soo bandhigo dhammaan talentiska fikradaha iyo aragtiyaha kala duwan ee bulshada diimaha sixirka iyo indhasarcaadka kuwooda cabsida iyo argagaxa leh sida sheekada ciwaankan ugu yaabka badan bartaas oo lagu magacaabo Unico Sopravviviente oo la macno ah badbaadaha kaliya ciwaankan waxaa iska leh shakhsi magaciisa lagu magacaabo Khafiyeer waa sida uu ku qortay safxadda sare ee bartiisa muuqaalkiisii ugu horreeyay oo uu soo duubay bishii Febraayo ee sanadkan ayaa waxa uu soo duubay isagoo oo keligii dhex maraya wadada oo aan cid kalena agtiisa joogin waxa aanu ku dul qoray muuqaalkiisa maanta waa 13 February ee sanadka 2027 waxaanan ku ahay magaalada Valencia keligii oo ma jiro qof kale oo jooga magaalada sida uu sheeganayo shakhsigani wuxuu ka soo toosay isbitaalka isagoo aan waxba xasuusan oo aan garanayn waxa ku dhacay laakiin uu arkay inuu isbitaalku maran yahay oo isaga mooyee cid kale aanay joogin markii uu dibadda u baxay si uu u xaqiijiyana waxa uu arkay in ay suuqyada laftoodu maran yihiin oo aan wax dad ahi joogin wax baabuur ahina aanay dhaqaaqayn markii uu soo baahiyey muuqaaladan wuxuu helay daawadayaal aad u badan maalmo yar gudahood qaar ka mida dadka ka shakiyey ayaa ku macneeyey in muuqaaladan la duubay wakhtigii xayiraadda ee la fadhiyay laakiin arrinku wuxuu u sii gudbay in uu soo geliyo muuqaalo kale oo badan kuwaas oo dad badan ku riday argagax sida aanay uga dhex muuqanin wax dad ahi dadkii qaarkood ayaa bilaabay in ay xujeeyaan Khafiyeer iyaga oo ka codsanaya in uu tago meelo caam ah oo la wada yaqaano in ay yihiin meelo saxmad badan oo uu iskaga soo duubo muuqaalo isaga oo Khafiyeer ka soo baxay xujadaas oo iskaga soo duubay goobihii loo diray iyada oo aan wax dad ahi ka muuqan si uu u muujiyo in aanay muuqaaladiisani ahayn kuwa hore loo sii duubay arrinkuna wuxuu u sii gudbay in mid ka mid ah TV-yadu uu u soo bandhigay xujadii ugu adkayd balse halkaas waxaa ka dhacay u qaadan waagii ugu yaabka badnaa adiga oo ku ogaan doona qaybta dambe ee muuqaalkan xujadaas iyo sirta ka dambaysa shakhsiganba balse xujadii u horreysay ee Khafiyeer laga codsada ayaa ahayd in uu tago isla isbitaalkii uu ka soo toosay taas oo ka fajicisay dadkii kadib markii uu soo duubay isbitaalkii oo aanay joogin shaqaalihii dhakhaatiirtii kalkaaliyayaashii iyo wax bukaan ah midna iyada oo dadku ay isla wada garteen in xataa wakhtigii xayiraadda aanay isbitaalladu ahayn kuwa u maran sidan oo kale waxaana arrinka yaabkiisa sii kordhiyey wuxuu soo duubay qalabkii elektarooniga ah oo ay ka muuqato inay sheegayaan in ay taariikhdu tahay bisha Febraayo 2027 waxaase haddana amakaa ku noqotay dadkii ku xidhnaa bartiisa warqad kasta iyo dhammaan dukumentiyadii isbitaalka yaalay waxaa ku qoran sanadka aynu ku jirno ee 2021 taasoo ay dadka qaarkood ku fasireen in laga yaabo in uu jiro waxa loo yaqaano caalamyada barbaraha ah ee isbarbar yaala ama loo yaqaano parallel universe oo uu nin kale u safray si uu ugu noolaado labadan xilli waqtiyeed ee kala duwan qof kale oo ka mida dadkii ku xidhnaa bartiisa ayaa ka codsaday xujo kale oo ah inuu weydiiyo qalabka loo yaqaano Alexa oo ah mid la mid ah adeega Siri ee iPhone-ka kaas oo ku xiriirsan internetka caalamiga ah oo dhammaan jawaabihiisa ka soo qaada shabakadda internetka taas oo aanay suurtagal ahayn in la khaldo ama la bedelo Khafiyeerna wuxuu weydiiyey inta ay marayso taariikhda maanta isaga oo qalabkiina si kadisa ugu jawaabay in ay tahay 21 Febraayo 2027 xujooyinkiina waa ay sii kordheen oo waxa laga codsaday inuu tago meelaha saxmadda badan ee ay dadku ku badan yihiin maadaama magaalada Valencia keligeed ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof oo ay adag tahay in aad matasho in aad keli ku tahay suuqyada magaaladan adiga oo aan qofna la kulmin laakiin Khafiyeer wuxuu ka soo baxay dhammaan xujooyinkaas oo wuxuu tagay goobaha isagoo soo duubay iyadoo aan cid isaga ahayn aanay joogin
isagoo sidoo kale tegay goobaha taariikhiga ah ee qadiimka ah sida kaniisadaha magaalada kuwaas oo leh ilaalo aad u adag. laakiin ninkani meel walba wuxuu u gelayaa si dhib yar iyada oo aan cidina ka hor istaagin oo aanu qofna la kulmin. mid kale oo ka mida xujooyinka loo diray ayaa ahayd inuu tago airboodka ama madaarka, halkaasoo uu iskaga soo duubay muuqaal iyada oo ay wada maran yihiin dhammaan barxadaha madaarka oo aanay joogin xataa ciidamadii amnigu, isagoo sidoo kale soo bandhigay inuu halkaas ku soo arkay duulimaadyo u diiwaan gashan dad aan meeshaba joogin. waxa ay u sii gudbeen xujooyinkii inuu tago qasriga boqortooyada isbaanishku ku leeyahay magaalada Valencia, isagoo inta uu aayar tegay iskaga soo duubay qasriga boqortooyada dhexdiisa, halkaasoo caan ku ah ilaalo aad u adag, isaga oo soo bandhigay in aan cidina joogin. inta badan ra'yiyada dadka ku xidhan bartiisan waxay ahaayeen kuwo ku tuhmaya inuu muuqaalada ku sameeyey habayn iyo editing heer sare ah isagoo u adeegsanaya borograamyada loogu talagalay. balse Xavier waxa uu tegay goob ku caan ah inay tahay mid ciriiri badan, kadibna waxa uu soo duubay humaagiisa oo ka muuqda mid ka mid ah muraayadaha ku dhegan derbiyada goobtaas, si uu dadka ugu muujiyo in xagga ka dambaysa aanay ka muuqan wax dad ahi. iyadoo sida ay sheegeen dadka ku xeesha dheer barnaamijyada habaynta muuqaaladu ay adag tahay in wax laga masaxo sawirka ka dhex muuqda muraayadda. aaraa'da dadweynaha qaar ayaa ku dooday in muuqaaladan uu soo duubo xilliyada waaberiga oo aanay dadka intooda badani soo toosin oo ay suuqyadu maran yihiin. balse Xavier ayaa tegay goob barxad ah oo ku taalla magaalada Madrid oo ku caan ah in ay tahay goob camiran oo aanay dadku ka dhammaan, kana soo duubay muuqaal saacadda caamka ah ee barxadda ku taalla oo ay adag tahay in ay cidi bedesho iyada oo tilmaamaysa 6dii galabnimo oo rubuc dhiman. qof kale ayaa ku xujeeyey inuu tago garoonka kubadda cagta ee kooxda Valencia. Xavierna waxa uu u galay si sahlan isagoo muuqaal ka soo duubay qolka labiska ee ciyaaryahanada u gaarka ah. waxaa laga codsaday dalab kale oo ah inuu booqdo beerta xayawaanka, taas oo noqotay la yaab markii uu Xavier tegay oo uu ka soo duubay muuqaal isaga oo keligii dhex jooga beertii xayawaanka ee ay xayawaanka nooc waliba ka buuxi jireen oo aanay ka muuqan wax dad iyo xayawaan ah midna. Xavier ayaa bilaabay inuu isla markiisa dadka xujeeyo oo waxa uu soo duubay isaga oo silisyo iyo furayayaal ku qarinaya goobo caan ah, isaga oo astaynaya meelaha uu dhigayo, kadibna dadka ka codsaday inay tagaan goobahaas oo ay muuqaala ka soo duubaan marka ay soo helaan, iyaga oo dadkii magaalada deganaa qaarkood tageen goobihii uu asteeyey oo ay soo duubeen iyaga oo helaya waxyaabihii uu meesha ku qariyey, iyada oo ay weliba goobtu tahay mid ay dad ka buuxaan oo cidhiidhi ah, kana duwan sidii uu ka soo duubay Xavier markii uu dhigayay silisyadan. mid ka mid ah tiifiyada dalka Spain ayaa u soo bandhigay xujadii ugu adkayd iyaga oo buug ku qariyay meel ka mid ah stuudiyowga gaarka waa tiifiga oo aanay marnaba dhicin in uu dad la'aan noqdo, iyaga oo ku xujeeyay inuu soo qaado buuggaas. Xavierna waa uu aqbalay isaga oo tegay oo muuqaal ka soo duubay stuudiyowgii oo cidlo ah oo aanu dhex joogin qof aan isaga ahaynin, buuggiina uu soo qaatay. balse markii ay dib u eegeen kaamiradihii ilaalada ee stuudiyowga ku xidhnaa, waxa ay arkeen in isla wakhtigii buugga la waayey uu soo muuqday wax xadh oo kale ah oo yaab badan oo stuudiyowga dhex socda. waxaa mar dambe soo baxday in ciwaankan iyo muuqaaladani ay xayeysiis u yihiin filim musalsal ah oo magaciisa la yidhaahdo Unico Sobreviviente ama badbaadaha keliya, oo sheekada shakhsigan oo kale ka hadlaya. balse taasina waxay markii dambe noqotay mid aan sax ahayn oo warkaasi wuxuu noqday mid si khaldan loo turjumay, waayo shirkadda filimada samaysa ee dalka Spain waxa ay sheegeen in ay ka faa'iidaysteen xiisaha ay dadku u qaadeen sheekada ninkan oo ay isaga fikirka ka qaateen, kadibna ay damceen in ay filim u rogaan, balse aanay ahayn fikir ay iyagu lahaayeen. sida uu weeyahan buugga ku dhex qariyey stuudiyowgaba uga faa'iidaysanayo inuu ku xayeysiiyo buuggan uu meesha ku qariyey oo uu isaga laftigiisu qoray. haddaba waxa ay isweydiintu tahay, waa maxay sirta ka dambaysa shakhsigan iyo muuqaaladiisan dad badan cabsida ku abuuray? waxa aan kuu soo bandhigi doonaa jawaabta ugu macquulsan ee caqliga geli karta iyo xaqiiqadu waxa ay tahay. iyada oo dad badan ay isku dayeen in ay furaan xujada shakhsigan oo ay fashiliyaan sirta ka dambaysa, balse ay isku wada raaceen in muuqaaladani aanay ahayn kuwo lagu habeeyey barnaamijyada editinka. balse daawade, suurtagal ma tahay in xukuumadda Spain laftarkeedu ay ka dambayso ciwaankan dadka ka yaabiyey? laakiin sabab sug aan wax yar ku fahansiiyo.
waddanka Spain waa waddanka labaad ee ugu badan dhanka dalxiiska marka laga yimaado Faransiiska oo ah ka koowaad, iyadoo oo boqolkiiba 13 ka mid ah dhaqaalaha soo gala waddanka Spain uu ka yimaado dhanka dalxiiska, kaasoo ah wax aad u badan muhiimna u ah, iyadoo sidoo kale 12% ka mid ah dadka shaqeeya ee waddankaasi ay ka howlgalaan shaqooyin la xiriira dalxiiska. haddaba tan iyo dabayaaqadii 2019 waxaan ognahay in xanibaad la saaray isu socodka wadamada oo uu aad hoos ugu dhacay dhaqaalihii waddankani, iyadoo ay meesha ka baxeen dalxiisayaashii waddanka iman jiray iyo dhaqaalihii kasoo geli jirayba. balse bilowgii sanadkan ayaa ahaa waqti ay ugu tala galeen in ay soo celiyaan dhaqaalihii kasoo geli jiray dalxiiska, iyada oo waqti dhoweydna ay sheegtay wasiirka wasaaradda dalxiiska ee dalka Spain in ay samayn doonaan xayeysiin hor leh oo aan hore nooceeda loo arag si ay u soo jiitaan dalxiisayaal badan. haddaba maxay tahay jawaabta meesha ka soo baxaysa ee ugu macquulsan caqligana geli karta? kadib markaan aragnay in muuqaalada ninkani ay yihiin kuwo la habeeyey oo laga shaqeeyey oo aan ogaanay warkaas ku saabsan wasaaradda dalxiiska dalka Spain, waxa kale oo aynu arkaynaa markaan u fiirsano muuqaalada shakhsigan in inta badan uu booqanayo goobaha taariikhiga ah ee caanka ay ku tahay magaalada Valencia iyo Spain, isagoo oo ina tusaya sida ay nadiifta u tahay, soona bandhigaya muuqaalo qurux badan oo waddankaas. haddaba taasi waxa ay noqon kartaa in uu ciwaankan iyo muuqaaladani ka mid yihiin xayeysiintii aan hore loo arag ee ay sheegtay wasiirka wasaaradda dalxiiska ee waddanka Spain, iyaga oo uga faa'iideysanaya in ay u soo bandhigaan si farshaxan leh oo la yaab ka muuqdo quruxda iyo bilicda waddankooda iyo goobaha qadiimiga ah ee la booqan karo, iyada oo ay u suurtowday dowladda in goobaha qaar ay u cidlayn karto si looga duubo muuqaalada sida filimada oo kale ah, iyada oo goobaha aasaasiga ah laftigoodu sida isbitaalada, madaarada iyo madaxafyadu ay iskooda horeba leeyihiin meelo loogu talagalay keliya shirkadaha aflaanta sameeya oo ay muuqaaladooda ku duubtaan, ama ay suurtagal u tahay oo kale in lacag lagu bixiyo oo dad professionaal ah iyo barnaamijyo casri ah loo soo kiraysto sida shirkadaha aflaanta sameeya oo kale, oo aynu ognahay in muuqaalada noocaas oo kale ahi ay u fudud tahay inay sameeyaan, sida filimka lagu magacaabo I Am The Legend ee uu jilaaga ka yahay actarka Will Smith oo ka hadlaya inuu yahay qofka u dambeeya ee adduunka ku nool, iyagoo soo duubay magaalooyin dhan oo Maraykanka ah oo aan wax dad ahi ka muuqan, iyadoo ay u badan tahay in arrinku aanu xayeysiis ka marnayn haddii aanu sixiroolaba ahayn. balse barta TikTok ee shakhsiga yaabka badan waa mid ilaa hadda sii shaqaynaysa, isagoo weli soo gelinaya muuqaalada laga cabsanaya ee aanay wax dad ahi ka muuqan, isagoo oo tegaya goobo ay adag tahay in uu booqdo shakhsiga caadiga ahi, isagoo oo soo bandhigaya caddaymo cadcad oo aanay suurtagal ahayn in qof samayn karo, iyadoo haddii ay jirto wax sir ama khiyaamo ah oo u qarsoon shakhsigani ay soo bixi doonto mustaqbalka oo uu wakhtigu fashili doono. haddana waa mid daawadayaashiisa ku maaweelinaya nooc dalxiis oo cajiib ah oo aan hore loo arag. ugu dambeyntiina daawade, adiga maxay kula tahay raayigaaga? shakhsigan arrinkiisu ma runbaa mise waa beentii sanadka? haddii ay been tahayna sidee ayay ugu suurto gashay in uu dadka oo dhan siro? fadlan ha hilmaamin inaad like saarto muuqaalkan haddii uu ku qanciyey, sidoo kale ha moogaan inaad nagu soo biirto oo subscribe saarto channelka. mahadsanid.